sanadkan si dhamaana ee 2024 xaysiimihii ugu wanaagsanaa ee la suubiyay amaanta rabaa inaan kula wadaago. Number 1 shirkadda McDonald waxay sameysay xaysiin cajiib ah taasoo ah waxay sameysay box oo foldable ah oo kala furfurmaayo oo sida miis camal u sameysmaayo. Boxkaas oo loogu talagalay dadka cuntadeeda qaadanaya meel walba ay tagaan, haddii diyaarad ay saaran yihiin, haddii maxaa la dhahaa dhulka ay joogaan, haddii markab ay saaran yihiin, si kursi camal u sameysmaayo. Box kala furfurmaayo oo cabitaankaaga meel saaratid leh, yacni oo عجيب wuxuu noqday marketingkii ugu cajiibsanaa ee sanadkan number 1 qaatay. Number 2 waxaa qaatay maqaayad rabtay inay xayisiin sameyso. Maqaayadan waxay sameysay pamphlet yar oo boorso ah. Tusaale boorsadii dhulka ku tuurayaan, qofka markuu isdhaa boorsadan lacaga ku jirto qaado ma kala furmayso, waxay noqonaysaa pamphlet. Waxay arkayaan adeegyada kala duwan iyo cuntooyinka maqaayadaha ay iibiso. Labada marketing waxay noqdeen marketingnadii ugu cajiibsanaa ee sanadkan la sameeyay. Labada midkee aad jeclaatay? Sidoo kale labadoodaba haddii aad u baahan tahay inaan kuu soo dirno sida loo suubiyay iyo maxaa la keeskan dadka diyaariyay, kaliya qaybta commentiga ku soo qor marketing. Waxaan kugu soo diri doonaa sida caadiga qaybtaada fariinta. Haddii aad jeceshahay barashada koorsooyinka ganacsiga e-commerce-ga, digital marketing-ga, waxaa jira koorsooyin online ah oo aan qaadanayno. Iska diiwaangeli adoo ku dhufanayo linkigan. Waa mahadsantahay.